waxaa maanta magaalada Laascaanood lagu soo gabagabeeyay mashaariic ay hay'adda DDG ay ka waday gudaha degmada Laascaanood waxaana kala soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Talwale iyo guddiga xaafadda Farxaskulo oo mashaariicda laga hirgeliyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan inay kala soo qayb galaan barnaamijka xidhitaanka mashruuci AFR loo oran jiray DDG ee guddiga Farxaskulo iyo bulshada kale qaybaheeda iyo dhammaan shaqaalaha DRC DDG inta kadib waxaan yar faahfaahinayaa mashruucan sidoo uu ku soo bilowday iyo sidoo imika uu ku dhamaaday mashruucan si aad wada ogtihiinba wuxuu bilowday bishii 7 ee sanadkii 2017 ayuu bilowday waxa uu ahaa mashruuc laba qaybood isku jira qayb ah xalinta khilaafaadka iyo qayb kale oo ah in walxaa qarxa la burburiyo iyo wacyigelinta miinada shaqadu waxay si fiican u bilaabantay bishii 8 sanadkii 2017 waxyaabaha la qabtay waxa kamid ah tababaro badan baa la qabtay tababarada waxa ugu horeeyay tababarkii la oranayay in guddiga la isku yeero oo la keeno khilaafaad dhabahaantii ma soo koobi karo khilaafaadka aanu xalilay kuwa noo suurtoobi waayay haddii aan wax ka xuso waxa ugu horeeyay dhibkii ka dhacay aanu hay'adda u gudbino qorile iyo gumburka dagaalka qaybtii hore mar la dili jiray dhowr nin iyo khilaafaad kale deegaanka waanu soo gudbinay oo 4 ah hay'addu markii loo gudbiyay ee Hargeysa loo gudbiyay barnaamijkii qorile iyo gumburku wuxuu noqday barnaamij aad u culus markii ugu horeysay odayaal kamid ah ayaa la soo hay'addu marti qaaday hoolkan la keenay la xog waraystay xogtoodii iyagoo ayay waxay u gudbeen meesha la yiraahdo Hargeysa waxay noqotay lacag aad u fara badan inay ku kacso mashruucaasu marka waxyaabihii kale aanu soo gudbinay oo ahayd solarkan qaybta kala baydh iyo khilaafaad yaryar oo beeraleyda iyo bulshada dhexyaalay markaas iyo xafiiska guddida oo baahidiisa aanu dhowr jeer uga cabanay hay'adda ayaa waxay noqotay in wax laga qabto aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin leerkii waa ka jabay ka kale leerkii la sakaamayn waxa ka solarka waxaanu idin ka codsanaynaa inaad isku daydaan 10 ka xabay hay'addu noo taagtay inaad 10 kale oo la mid ah noogu dartaan amba xitaa haday kuwani damaan hadii alla idmo ila weedabi kare wax ma karayaan inaad leerkiina noogu xidhaan oo free ahaadaan 10 ka iyo 10 ka kaleba وهذا الأهل آدي أدونا سويا وأنا قش آدي أدونا سن. أنت كديم halkan waxaan mahadnaq ugu soo jeedinayaa hay'adda DDG oo muddo 7 bilood waday muxuu ahaayay khilaafaadka muxuu ahaayay xaafadda Farxaskulo iyo degmada kala baydh kuwaas oo codsiyadoodii ay ugu muhiimsan tahay in ay ka codsadeen dadweynuhu wixii ay ka codsadeen oo ahaa light wadooyinka ama dhulka madmadow in loo geliyo kuwaasoo ay aqbaleen tiina ay suurowday in ay maxay ahayd hawsha la fuliyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha waxaan ku wacyigelinayaa anigu hadal badan oran maaye waxaan isugu nimi kullay hay'adda DDG waa hay'adaha kale nooga soocan muddadii yaradii nala joogtay wax qabadkay ka qabatay gobolka degmooyinka Laascaanood iyo kala baydh aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba hay'addu kala baydh iyo Farxaskulo waxa ka samaysay guddiyo waxa ka furtay xafiis shaqaynaya oo maanta qalabeysan bay ka tagaysaa oo guddigiisina u dhantahay iyana aad baan ugu mahadnaqaynaa hayaankiisii aynu bilownay bishii 7 ee sanadkii 2017 wax qabadkiisa bishii 8 ee 2017 mashruuca oo ahaa laba qaybood oo ay noo wadeen hay'adaha DDG iyo DRC ahaa in dhulka dushiisa laga ururiyo waxyaalaha qarxa ee waxyeeli karaya dadka iyo dunyadaba iyo in la sameeyo guddiyo tayo leh oo loo sameeyo xaafadaha magaalada qayb kamid ah Farxaan Maxamed Aidiid Ariel TV Laascaanood